kulanti wacan daawadayaal halkan waa channelka Halgan Media kusoo dhawaada daawadayaal wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah qarax qasaare geesay oo ka dhacay duleedka Muqdisho iyo fayna kala duwan oo soo baxay qaraxyo saacadihii ugu dambeeyay ka dhacay caasimadda Muqdisho iyo Galmudug Somaliland oo dacwo ka ranah dawladda federaalka u gudbisay beesha caalamka بلا صوماليا وسعودية سحريركي مرات كي مسؤول دولي أبو ظبي دي الفول حنو مانتا مقدشو لوجي السيد روى المرتبجات إيران أو هنجبات كل أدرتي دولة أمريكان كا وسنين تاريخ دنا يكوب يجان تحي كويلاتن كسبتمبر سنة كلابكم يلباتن وديار جروبا صاحب يال وضبط وركا داوتين ودمسيران فافاهن درادا يكسب حيا قرح قصار جيسي وكدعي دولة كما قال هذا مقدشو wararka ka imaanaya duleedka Muqdisho ayaa sheegaya in wadada dheer ee xiriirsan Muqdisho iyo Afgooye qarax lagu leeyagtay ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya xilli ay ku socdaalayeen wadadaasi qaraxa oo ahaa nooca minada dhulka lagu aaso ayaa barqanimadii maanta ka dhacay deegaanka Weedo sida ay sheegeen dad goobjoogayaal wararka ayaa sheegaya in qaraxaas ay waxyeello ka soo gaartay ilaa 3 qof kuwaas oo loola soo cararay goobaha caafimaad ee magaalada Muqdisho sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan maamulka deegaanka Garsbaale ee dawladka caasimadda oo ka hadlay qaraxa ayaa sheegay in gaariga ay wateen ciidanka dawladdu uu ka badbaaday qaraxa isla markaana ay hadda wadaan baritaan ku aadan qaraxaasi ciidamada ammaanka ayaa muddo kooban hakad geliyay dhaqdhaqaaqa goobta qaraxu ka dhacay inkastoo markii dambe dib loo furay dhinaca kalena rag miino dhigayay ayay kula qaraxday isla magaalada Muqdisho xubno ka tirsan al-shabaab oo qarax ku aasayay wadada hurashadaha gaar ahaan wadada xiriirisa suuqa xoolaha iyo hurashadaha ayay halkaasi miinadii ay aasayeen kula qaraxday wararka ayaa sheegay in qaraxa oo ahaa nooca miinada dhulka lagu aaso ku dhacay wadada dheer ee xiriirisa suuqa xoolaha iyo isgoyska Soos ilo dadka deegaanka ah oo lagu korsan yahay ayaa inoo sheegay in miinadaas ay ku qaraxday ragii aasayay oo gaarayay ilaa 4 ruux sidoo kale dadka deegaanka ayaa intaas ku daray in meedka 4 ruux saakay lagu arkay goobta uu qaraxa ka dhacay oo mar dambe ay tageen ciidamada ammaanka maamulka degmada Yaaqsheed warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in raggan oo ku guda jiray aasidda miinada qaraxa uu haleelay isla markaana iyaga kaliya uu qasaare ka soo gaaray balse ay qaraxday miino kale oo iyaga ay aaseen taas oo inaan geesan wax qasaare ah dagaal xooggan ayaa mar kale ka dhacay magaalada Dhuusamareeb duleedkeeda warar dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal mar kale ka dhacay gudaha deegaanka Mirdugul oo koonfur ka xiga magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dawlad goboleedka Galmudug dagaalka oo ahaa mid culus ayaa waxa uu dhaxeeyay ciidamada xoogga dalka kuwa Galmudug oo dhinaca ah iyo dagaalada kooxda al-shabaab wararka ayaa sheegay in halkaas uu ka dhacay dagaal qaraar oo muddo qaatay kaas oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa sheegay in dagaalka kadib ay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka Mirdugul ee gobolka Galguduud sidoo kale ilo deegaanka ah ayaa sheegay in iska hor imaadka dhexmaray labada dhinac uu ka dhashay qasaare lixaad leh xaaladda ayaa haatan aad u kacsan waxaana dhaqaaqyo iska soo horjeeda laga dareemayaa duleedka magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug isla wararka Dhuusamareeb taana ka bixina qarax ayaa ka dhacay Dhuusamareeb iyadoo lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dawladda warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qarax qasaare geesay oo maanta ka dhacay duleedka caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb hal askari ayaa ku dhintay mid kalena waa uu ku dhaawacmay kadib markii ay miino la kacday gaari nooca dagaalka ah oo ay leeyihiin militariga qaybta 12aad ee deegaanka Mirdugul oo Dhuusamareeb dhan koonfureed ka xiga dagaal kooban ayaa gelinkii dambe maanta ka dhacay halkaasi iyadoo qasaare kala duwan uu ka dhashay dagaalkaasi maamul Galmudug waxa ay sheegeen in laga awood ronaaday al-shabaabkii dagaalka la galay iyadoo qaraxa ka dhacay duleedka Dhuusamareeb aysan maamulka Galmudug wax faayina ka bixinin filla Soomaaliyana waxay soo celinaysaa xiriirkii ka dhaxeeyay Imaaraadka iyadoo mas'uulna Dubai uu duulay warar lagu kalsoonaan karo oo aan keenay ilo wareedyo kala duwan ayaa sheegaya in madaxtooyada Soomaaliya ay qorsheynayso inay dib u bilowdo xiriirka dawladda Imaaraadka Carabta malafka dib u soo celinta xiriirkii Imaaraadka Carabta ayaa waxa loo dhiibay ergeyga gaarka ah ee madaxweyne Farmaajo qaabilsan arrimaha badda Caasiya gacanka cadan Maxamed Cismaan Balal wararka ayaa sheegay in Maxamed Cismaan Balal uu ku wajahan yahay Imaaraadka Carabta si uu u bilaabo hadallada isagoo fariin ka sida madaxweyne Farmaajo
lama shaacin fariinta madaxweyne farmaajo u diriyay imaaraadka waxaase jiray xiriirka labada dal inuu aad u xumaaday tan iyo markii dowladda madaxweyne farmaajo la wareegtay lacag dhan 9.6 milyan oo dollar muddo laga joogo 30 bilood sidoo kalena dowladda Soomaaliya ayaa ku gacan saartay heshiiskii dekada Berbera ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo ay xulafo dhow yihiin madaxweyne farmaajo ayaa muddooyinkan dambeba ka shaqeynaya sidii loo soo celin lahaa xiriirka madaxweyne farmaajo iyo imaaraadka iyadoo shuruudaha imaaraadku dalbaday in la fuliyo si loo soo celiyo xiriirka labada dal ay ka mid yihiin in dowladda Soomaaliya bixiso cudurdaar rasmi ah ayna soo celiso lacagaha aqbasho heshiiskii dekada Berbera iyo midka Boosaaso Somaliland ayaa dowladda federaalka uga dacwootay beesha caalamka doorashada arinta la xiriirta war-saxaafadeed ka soo baxay Somaliland ayaa lagu sheegay in beesha caalamka ay u gudbisay dacwad ka dhan ah dowladda federaalka oo salka ku haysa doorashada dalka ka dhaceysa 2020-2021 ee dhawaan heshiiska laga gaaray Somaliland ayaa qoraalkan gaarsiisay qaramada midoobay midowga Afrika midowga Yurub iyo dhammaan wadanayaasha arrimaha Soomaaliya si ay ula socdaan dacwadaha ka dhanka ah dowladda federaalka maamulka Somaliland ayaa ku doodaya in uu Soomaaliya ka go'ay 18 May 1991 waxaana sanadkaas uu ku beegan yahay markii ay dhacday dowladii militariga ahayd ee dalka maamuleysay 12 sano balse Somaliland ma aysan helin aqoonsi waxaana qoondada beesha caalamka lagu siiyaa qayb ka mid ah Soomaaliya halka xubno deegaan ahaan ka soo jeeda ay qayb ka yihiin qaybaha kala duwan ee hay'adaha dowladda federaalka golayaasha shacabka aqalka sare iyo wasiirada ayay shax kuraas ah ku leedahay Somaliland waxaana doorashadoodu lagu qabtaa Muqdisho caasimadda dalka maadaama aysan suuragelin in Hargeysa lagu qabto doorashada Somaliland maamulka talada Somaliland ayaa marar badan sheegay inaysan qayb ka ahayn howlaha siyaasadda ee dalka balse waxa arintaas waxba kama jiraan ku tilmaamay xubnaha deegaan ahaan ka soo jeeda Somaliland ee xil kala duwan ka haya dowladda federaalka dil foolxun ayaa ka dhacay Muqdisho iyadoo wiil bajaajla ahna nafta la dhaafiyay askari ka tirsan ciidamada dowladda ayaa magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Hodan waxa uu maanta ku dilay mid ka mid ah wadayaasha ku shaqeysa mooto bajaajka goobjoogayaal ayaa waxa ay inoo sheegeen in dilka uu ka dhacay xaafadda Zone K degmada Hodan ee gobolka Banaadir isla markaasna askariga dilka geystay uu goobta ka baxsaday wiilka bajaajlaha ah ee la dilay askariga oo wadada dhinaceeda taagnaa ayaa ka codsaday in uu qaado waana uu qaaday balse markii ay marayeen xaafadda Zone K uu askariga rasaas ku furay sidaasina uu ku dhintay darawalkii mootada ayuu yiri qof goobjooga ah warar kala duwan ayaa waxay ka soo baxayaan sababtu askariga u dilay wadaha bajaajka waxaana wararka qaar ay sheegayaan in askariga uu ahaa mid isticmaalay waxyaabaha maanka dooriya ehelada darawalka mooto bajaajka ee la dilay ayaa tagay halka uu dil ka dhacay iyaga oo goobta ka qaaday meedka marxuumka kaas oo la geeyay qaybta meedka isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho dad si aad u yaqaanay darawalka la dilay ayaa waxay sheegeen inuu ahaa aabe laba xaasla sidoo kalena ka soo ku shaqeynsan jiray mooto bajaajka gelinka dambe ee maalintii una mararka qaar ka shaqeyn jiray dukaan uu ku leeyahay xaafadda Zone K ugu dambeyntiina Iran ayaa fariin hanjabaad ah u dirtay dowladda Mareykanka madaxweynaha Iran Xasan Rouhani wuxuu sheegay in Mareykanku uu wajahayo guul darro kadib tallaabada Mareykanku uu ku doonayay in cunaqabataynta qaramada midoobay dib loogu soo rogo Iran xilli wadamada reer Yurub ay ku tilmaameen arintaasi tallaabo aan sharciga waafaqsanayn xilli uu qodobka ka jeedinayay telefishinka qaranka dalkaasi madaxweyne Rouhani wuxuu sheegay in ay jawaab wax burburin doonto ka bixin doonto handadaada Mareykanka maamulka Trump waxa uu ku doodayaa in tallaabada cunaqabataynta dib loogu soo rogo Iran ay ku qoran tahay heshiiskii uu Mareykanku ka baxay sanadkii 2010 ee ku saabsanaa barnaamijka nuclear-ka wadamada kale ah UK France iyo Germany waxay sheegeen in Mareykanku uusan lahayn awood uu tallaabadaasi ku qaado arinta uu shaaca ka qaaday Mareykanka waxa ka hor yimid dalalka xubnaha ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay ma kala cadda waxa ka dhalan kara go'aanka Mareykanka guud ahaana daawadayaal waa naga inta wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka tan iyo kulan dambe nabadgelyo